محمد قشي أنا ما مقلي قبو بدنا جلو أوكي هذا بقى كسر دوادا برنامجك قول إيو نبض وذي قول إيو نبض وذي وحالوغو تلقلي إن lagu soo gudbiyo guulaha dadka adduunku ay gaareen iyo waliba sida markaasi xalal loogu heli karo wax loo baahan yahay in guul laga gaaro hadaba dhinacyo badan ayuu yeelan doonaa ku soo dhawow wali barnaamijkii barafka oo inoo socdo barnaamijka barafka maanta waxaynu ku soo qaadanaynaa waxyaabo aad u kala duwan waxa kamid ah hees laga qaaday barafka iyo sidoo kale waxa kamid ah waxyaabaha aynu ku soo qaadanayno koox dhalinyaro Soomaali ah oo ku ciyaarta barafka waxaan dareemayaa qabow okay hadaba sidoo kale waxaynu ku soo qaadanaynaa waxyaabaha markaas loo baahan yahay inaad isticmaasho haba ugu weynaadaan waxa loo yaqaan uulka koofiyadaas ha iska ilaawin aniga dukaan ma ihi kuma xayeysiinayo laakiin waa mid kamid ah waxyaabaha loo isticmaalo madaxa inuusan qabowgu kaa gelin kusoo dhawow markale barnaamijkii markan aynu ku daahfurno hees wiil dhalinyaro ah uu qaaday oo uu ku dhex qaadayo barafka qabowga barafka iyo jacaylka yaa xanuun badan dhagaysi wacan albumka deeqaluul alla kulula jacaylka kaalayo ani kaale kaaligay wala kurboode kaalayo ani kaale kaaligay wala kurboode kaa helay akama maarme kelmadan akuma quure helay akama maarme kelmadan akuma quuren dhagaysi wacan albumka deeqaluul alla kulula jacaylka kaalayo ani kaale kaaligay wala kurboodeen kaalayo ani kaale kaaligay wala kurboodeen kaa helay akama maarme kelmadan akuma quuren kaa helay akama maarme kelmadan akuma quuren kaalayo ani kaale kaaligay wala kurboodeen kaalayo ani kaale kaaligay wala kurboodeen kaa helay akama maarme kelmadan akuma quuren helay akama maarme kelmadan akuma quuren waa hagaag intaas ayaynu ugu gudbaynaa heestaasi barafka maadaama maxay dhahdaa wax yaraynu kasoo qaadanay markana bal aynu eegno kooxda Soomaalida ah ee markaasi iyagu ku ciyaara barafka iyadoo ay tani tahay wax uusan dal Afrikaan ah hore u sameeynin
waxay noqonaysaa xulkii qaran ee ugu horeeyay ee Soomaaliya u matala ciyaaraha qabowga balse kooxdani oo ka kooban wax ka badan 10 dhalinyaro ah kama aysan imaanin dalka Soomaaliya sida uu sharxayo Axmed Xuseen Cabdi ee waxa ay noloshooda intooda badan ku qaateen dalka Sweden gaar ahaan magaalada Burlenge halkaasi oo heerkulka ka hooseeyo darajada eber waxayna matalayaan Soomaaliya oo kamid ah wadamada ugu kulul adduunka iyaga oo ku ciyaaraya deegaanada ugu qabow adduunka barafkana ay ku dul ordayaan ciyaaryahanada waxayna u gaartahay wadamada qabowaha ee barafku ka dhaco sida aad ka arki kartaan kaamirada waxaa la xiranayaa kaba gaar ah oo lagu sanbirxanayo ama lagu salinteynayo qofka aan aqoonin dheelitirka xarakaadka uu ku soconayo iyo qaabka la isku wareejinayo haddaadan aqoonin waaba dhacaysaa iska badaa inaad gool dhaliso garoonka lagu ciyaaro waxa uu egyahay kan kubadda cagta waana 11 ciyaaryahan sida kubadda cagta oo kale laakiin waxaa lagu gorfeeyaa ulo loogu talagalay in kubadda si miisaan leh loogu socodsiiyo kooxdani waxa ay ka diiwaan gashan tahay guddiga Olombikada Soomaaliyeed iyo wasaaradda dhalinyarada iyo sportska Soomaaliya balse waxaa aasaasay nin ganacsada ah u dhashay dalka Sweden oo lagu magacaabo Patrick Anderson iyadoo ujeedadu ahaa sidii isfaham loogu dhaxdhexaadin lahaa ilaa 30,000 oo Soomaali ah oo magaaladaasi degan iyo dadka Sweden u dhashay oo iyagu si weyn u xiiseeya ciyaaraha barafka lagu ciyaaro inkasta oo guushoodu ay tahay fursad lagu tilmaami karo sur dhagax gashay haddana xubnaha kooxdani waa kuwa sii dabaaldegaya ka hor ciyaaraha iyaga oo isku haysta inay yihiin horyaalka qaaradda Afrika ee ciyaaraha qabowga adduunka maadaama ay yihiin kooxda kaliya ee dal Afrikaana ka socda ee ka qayb galaya ciyaaraha qabowga adduunka. Next stop, Siberia. wahaga klibkii labaad ee markaasi qaybtii barafka ee taxanaha inoo ahayd la soco qaybta saddexaad iyo waliba xalu helidda ku noolaanshaha barafka tan intaynu ku kulmi doono klibkan oo kala ah sidaas iyo nabadgelyo fadlan share garee oo subscribe garee fadlan share garee oo subscribe garee barnaamijka kan qaradaha kulmay